الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه كانوا يخافون من ذنوبهم أشد مما يخافون عدوهم وسلم تسليما كثيرا أما بعد اتقوا الله تعالى وأطيعوه في السر والعلن أحبتي في الله إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيس وحكيري وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير alle subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay dhibaato haddee idinku dhacdo musiibo haddee idinku dhacdo waa waxaa idinka shaqaysateen gacmihiina waxaa ku shaqaysateen oo dunuub ah waay kulli miyaa ilaahu wax walbo dembi aan galno manugu ciqaabaysaa ilaahay wuxuu leeyahay wayacfuu can kaiir ilaahay waxaa badan inta uu cafiyo inta uu nagu qabsado waxaa ka badan inta uu noo cafiyo annagoo ogeen meeqa ummadaa la baabi'iyey oo naga xoog badan qowmu caad qowmu hamuud dadkii buuraha guryaha ka dhisan jiri oo dhaheen yaa naga xoog badan inta xooggooda isku mahdiyey yaa naga xoog badan ilaahay subxaana wa tacaala wax yar ma ku qaadanin wuu baabi'iyey dunuub ay galeen ayaa lagu baabi'iyey meeqa dowladoodoo jiri jireen dunuub ay galeen lagu baabi'iyey meeqa nimco lagu siiyey oo lagaa cashtay dembi aa gashay darteeda allana wuxuu leeyahay dalika bianna allaha lam yakun mugayiran nicmatan ancamaha calaa qowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim alle wuxuu leeyahay alle hadduu dad nimco siiyo kama bedelo mana ka qaado ilaa ayaga ay isbedelaan mooye waa fiicneed nimca lagu siiyey waad isbedeshay nimcada waa lagaa qaadanayaa waxyaabaha naga dhexdhaco masaa'ibta maanta aan aragno ma yara maxaa yeelay waxyaabo badanaa maqalnaa waxaan maqalnaa guriyaa soo dumay dhowr jeeraa waxaan maqalnay bakaaro ayadoo laiska joogo waa iska gubatay soo lama maqlo yaa gubay ma la isweydiiyey guryahan iska taagan ayagoo taagan iska dumaayaan gawaaridan shilka galaay inta ka dhac qofaa badda qaaday maraakiibaa badeecasa uudeen waa la waayey waxaasoo dhan dunuub aan galnay waay ma ku cibro qaadana markii guriga uu soo dumo waxaa la dhahaa gurigaan sanooyin u dhisnaay wallaahi wuxuu u soo dumi duq waay mee wax kale ma ah ilaahay ciqaabtiisii wuuna tusayaa markaasaa waxaan leenahay waxba ma aha waxaan aad oo la yaabay laba isbuuc ka hor hool lagu dhigaayay aroos waa wada aragteenaa u maleeyey internetka waxaa dumay meeshii lagu ciyaarayay oo arooskii aroosada iyo dadkii oo fisqigii meesha ku haayay waa duntay meeshii markii hoos boosaneeraa maraya hoolka boosaneerkiyaa dumay ilaahay subxaana wa tacaala munkarkii meesha lagu haayay tusaale yaru ka tusiyey wixii markay dumeen dad badanaa ku dhex dhacay waa laga soo bixiyey arooskii aroosada ma imaanin gurigooday joogeen waxaa yidhi ha imaanina meesha xoogo dhibaato ka dhacday ninkii hoteelka lahayaa hadlaaya wuxuu yidhi wax weyn ma aha waxaan wax yar cilad farsamo ku dhacday waaye boosaneerkiile naga hallaabay waa samaynaynaa haddane meeshii la dhihi lahay ilaahana badbaadiyey waa ciqaab rabbi tusaalo waaye waxaan munkaraadkan meeshaan aan ku hayno waa iska daynaynaa wuxuu yidhi cilad farsamay ku dhacday ciqaabta ilaahayna wuxuu leeyahay ciqaabteeda ha fududaysanina ilaahay wuxuu awoodaa hoolkaas waxa ku jiri oo dhan hal mar inuu baabi'iyo cid weydiinaysana ma leh cid dhahayso saamaxa u samaysa ma leh laakiin ilaahay wuu naxariis badan yahay in yaru kugu soo duminaa wuxuu rabaa inaad ku cibro qaadato dembiyaan galaye ilaahu dembigayga ii dhaaf uu rabaa ilaahay subxaana wa tacaala ma raba inuu dhaho cilad farsamee ku dhacday iyo markabaa badeeco saaran waa la waayey burcadbadeedaa jidka u gashay ilaaha soo diraaya waxaasoo dhan masaa'ib waay masaa'ibta aan wada arkeenoo dhan dunuub magaalada ka dhexdhacayso waay ilaahay subxana wa tacaala wuxuu leeyahay dadku may fiiriyaan meeqa ummad ayaga ka horeeyaan baabi'inay weliba waxaan siinay nabadgelyo iyo amni waxaan cirkiyaan u soo daaynay roobkiisa beerihiyaan u soo bixinay wajacalna alanhaara tajrii min taxtihim webiyadiiyaa qulqulaaya ayagoo adduunka joogo nimce ku jireen dembiyay galeen ilaahay ku caasiyeen ilaahay muxuu yidhi
فأهلكناهم بذنوبهم وحان كبابئني ذنبي ايقالين فأذان علماء النحات وحي دهان فاء التعقيب واي وشيء اسلام مركي دعايا واي ومديه هره markay dambi ay galaan isla markii ciqaabto lagu qaadi jiray babna sugi jirin ba anagana maanta markaan dambi galno oo aragno in waxba ilaahay usnaga qaadeenin waxa isku maleynaa ilaahay inuu jecel yahay maanta magaalada muqdisho dunuubta ka dhacdo xitaa waxaan dhihi karnaa ummadihii hore ma sameeyeen qaabnaansho zino meel walbo zina ka socoto cid ka hadlaysa aanan jirin dadkii waalidiintii gabdhahoodii in yaro ilaahay wax fahamsiimay gabdhahooda ayagoo qaaqaaban guryaha ka soo baxayo oo aan weydiinaynin xagee u socotiin 6 saac habeenimo gabar aroos ka timid maxay ku tahay adi ma adaa dhalay mise idaa ku dhashay hadaa hadashane gabadha afka ku goosaneysaba aabbaad waa dambeysay 2020 kala jooga laga raaxeystano naga joog haye gabadheedii raal ahaa uu leeyahay dayus way ahlu naar way ninka ilmihiisa ka adkaan karin nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyatihi maalinta qiyaam waalidiin fara badan waxa la weydiin doonaa gabdhiin intay ku ogeedeen war gabdhahan liida iyo meelahan xeewaha lagu haysto waalid ma dhalin miya dhul ma ka soo baxeen waalidaa dhalay oo xashiishka meel walba ku cabaaya raga xashiishka dhuumanaya hadda gabdhiya cabaaya meel walba ku cabaaya mootooyinka wada saaran yihiin mootadii tii ku soo martay tan kale nin inaaga saaran isku dhagan waliba meeqa aragnay wax naloo sheegay ma aha wiil iyo gabar oo mooto dhexdeeda isku shuminaya la arkay maalin cadeey isma qabaan saaxiibo waay intee laga keenay waa dhaqan gaaleed waana soo gaaray waa laga hadli waayay wuu faafay ilaahow dhibkaan naga bixi aan leenahay ma laga baxay dhibkaan illa ilaahay dunuubtaas looga soo laabto waalid walba wiilkiisa gabadhiisa ka adkaada dhibkaan inuu bata ma ahay ma yaraanayo meela soo duntay meela qarax ka dhacay meela saan ka dhacday way si badanee maxaa dhacay dheh ilaahay ma balo soo laabanaayba 8 saac habeenimo soo kacay daaqada soo istaagaysa moota socoto heesa ka dhaxyeeray waa xiligi ilaahay uu yiri samada koowaadan jooga qof walba wuxuu ruuhay weydiisto waan siinayaa mooto wada heesa u shidan taambuwa afka ugu jiro ilaahay wuu u jeedaa saas nooca sago ah maalinta qiyaamo wuxuu ku jawaabi doonaa siga yaqaan marka qofkan jiifaaba ilaahay wax ma weydiisaninba wuu iska hurdayba laakiin adigii soo jeeday dadka faa'iideysan lahayd ka waran laamiya ag deganahay 8 saac 9 saac markaan soo kaco banaankan soo daaqada soo fiiriyo maalna uma leeyaa salaad subax ma ku dhaaftay is leeyahay marka saacada fiiri 8 saac waay moota socodna la ka shidan gabdha saaran heesa ka shidan dunuubtaas ogow marka midna haysan ka hoos bixin qofka dambigaas galay kaligiisa le mal ciqaabayo dhamaanteen ciqaabta wayna soo gaari hadii ilaahay ciqaab uu soo dejiyo qofkii ka aamusay iyo qofkii sheegay iyo qofkii sameeyayba waa la wada halaagaya maalinta qiyaamaha qof walba wuxuu la soo baxayaa niyadiisa wanaagsan ay iska ilaalino إلهي سبحانه وتعالى وحوليه فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا غريوه ذويقا خاوينهم ذاتكي هوري يمن سبا مركا سومرتو دولال اسكا قاقابن دولال عدلاء غريو سيدود اتاغن او ولي ان بابئين دادكودي لا بابئيي غريها maxaa loo reebay waxa loo reebay in lagu cibra qaato qowm aad iyo qowm thamud la helay mar dhow meelihii ay degnaayeen niman xoog badan ay ahaayeen geedka timirta ah intay hal gacan ku qabtaan dhulka soo bixin jireen xoogaas ma leedahay malihid daciifa tahay ومع ذلك ilaaha isku taagayna ilaahu waxaan leenahay maxaa naga qaadi kartaa keen waxaad keenis 2019kii ma 9kii Indonesia wax lagu dhigi waa ogeedeen Indonesia anaga ilaahay agtiisa halankana ilaahay jacayl uu jacayl yahay manuu dhaafaaye wuxuu nuu dhaafayaa dunuubta inaan badsano oo ciqaabta inagu badato Indonesia dhulka lagu daray bada lagu soo daayay volcano lagu soo daayay daba lagu soo daayay markaas waxa la arkay magaalo oo dhan oo hal masjid ka taagan bis hal masjid meeshan guriga ku yaalay aan dhihi jiray guriga ku yaali jiray marka la fiiriyo xitaa aasaaska ma ku yaalo wala bixiyay bada la soo amray bad ma naga dheertahay anaga ma naga dheero amarka ilaahay ku shaqeysa walaala ilaahay aan ka baqno dunuubtu way badatay qof walow qofkaad ka adag tahay wax u sheeg qofkaadan ka adkeen oo walaalkaaga muslimka ahna u sheeg
haddayna maqlaayaan dhallinyarada mootooyinka wadaan ilaahay oga baqa arrintaas heesaha oo maalin walba shaqada ka dhigateen oo mootooyinka samaacada waaweyn soo saarateen walle maalinta qiyaamo su'aashaas jawaab ma u heli doontiin wallahi inaadan jawaab u heli doonin marka ilaahay hor istaagto oo tarjumaanna uusan jirin qof adiga ilaahay idin kala garqaadaya ma leh jawaabtaas diyaari hadlaka gaarasho leedahay dunuubtan aan ku dambi maanta gashay bariya gashay saadab baa gashay yaad isku haleynee ilaahay nasab ma yaqaano qaraabo ma yaqaano ninkaana madow ninkaana cad ma yaqaano ilaahay Soomaali way Indonesia way ma yaqaano ciqaabta ilaahay hanu soo dadajinina ilaahay ka baqa ilaahay loo soo laabto qof walba nafsadiisa ha xakameeyo dambi inta la egtaa ku jirtid iska qabo wallahi ciqaabta ilaahay ayadoon la filayna imaada ilaahay cidna uma digo ilaahay cidna wajiga maraw ilaahay cidna soo dhaweystaba acmaasha adiga aad sameeysanaysid oo wanaagsan adeeg ku anficee haddii xumaato aad sameeysid adeeg ku dhibee qabriga la galee waalid walbo wiilkaaga iyo gabadhaada xakameey diyaarada soo dhacday ama qalnaa mar walba maxay u soo dhacday isma weydiiyo kan ugu yar wuxuu ku dhahaa cilad farsamay ku dhacday hal qof oo dhahaayo waxaan ilaaha samadan ilaaha iska leh amar la'aantiisna ma la mari karo haddii ciqaabta ilaahay ee badad ilaahay samadan uu ka soo ridaa badan waa ka soo ridaa ilaahay cid u ka weydiinayo male guriyaa wada dumay qofka oo liibaanay waa ninka ku cibra qaato qof kale dib ku dhaco adi waa liibaanaysa markaas dumarkii soo wada baxay ayagoo qaaban ayagoo carafsan mutabarrijaatin bizina ayagoo ilaahay wuxuu leeyahay soo bixin idinka noocaas ilaahay amarkiisii gadaala loo tuuray waa la soo wada baxay aroosidii waa soo sheegnay khudbadihii hore lacaga tiro badan lagu bixinaa lacagaas masaakiin baa wax lagu qaban karaa israafkaas iyo xadgudubkaas ilaahay wuxuu sheegay innal mubadhiriina kaanu ikhwaana ash-shayaatiin dadka maalka tirada badan xumaata ku bixinaayo walaalaha sheedaanka waay dadka qaar shilalka markay dhacaan waxay ku leeyihiin waa cilad farsamay ku dhacday darawalkii aasaan noqday ma ilaahay wuxuu leeyahay wama arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad darra'i la'allahum yadarra'una dibadu kugu dhaco dibaadada kugu dhacdo iyo farxad ilaahay ina soo xasuustaa rabaa kadib ilaahay muxuu yiri thumma badalna makana sayyi'ata alhasana dadka markay ku cibra qaataan oo alle u soo tooba keenaan dambiga ee galeen wanaag baa lagu bedelayaa hatta afaw ilaahay ila wixii markuu afiyo hadii laakiin ay isbedelaan ilaahay wuxuu leeyahay ciqaaban siinayna ilaahay subhanahu wuxuu leeyahay waxaan ku ciqaabnay inay dareemaan alle subhanahu wa ta'ala ciqaabtiisa haday dareemaan oo dambi dhaafeena hadii kalena xanuunka u badinayna fa akhadnaahum baghtatan wa hum la yash'urun ciqaabta ilaahay waxay imaadaa kedo si kaysa ku imaadaa waliba ayadoo aan la dareemaynin Indonesia wixii ka dhacay wadaada ka sheekiyay wuxuu dhahay waaga markuu soo barin rabay waxaan dareemiyo dhahay dhulkiyo gilgilaayo waa soo baxay oo dhayd ka dhan waajiifeen buuran soo koray dadkii u qeyliyay wax imaqlaaya ma leh fiiri markii lagu dhahaayo ciqaabta waxay imaadaa si keeda ilaahay subhanahu wa ta'ala ciqaabta Indonesia wuxuu soo diray ayadoo wali aan la soo kicin salaad subax kadib uu soo diray qof walba gurigiisa jooga markaas ma aha qof walba gurigiisa jooga ayaga dhan waa la wada baabi'iyay maxay sameeyeen mataqaana waxyaabo aan sameeyno ay sameeyeen gabar khaaban aabaheeda safka wada ku jira uu tukanooyaa ayadan hotel ka ciyaaraysa ma ka hadlaayo gabar khaaban gurigaaga wiilala imaan dhalinyarada imaanayaan isku jaamacadaanahay in adeertay waay abtigeeya dhali ajnabiyu ka yahay qolu kula jira waxay sameeyeen ma ogid aabaha uu imaanaa habeenkii albaabka laga soo furo uu seexanaa yaa joogo cali yaa joogo gabadhaada ninkii isku jaamacada ahaayeen haye markuu baxay albaabka laga soo xireeyaa وجيفا أسجع قبل يسوح لو سمي مو أسجع واحد لو شيء كي إسكو جامعة لواء مركي الله سبحانه وتعالى أنت كبقنا ذنوب توين وبضتي أنت هنا أنت هالكلام فديه هذه قفل بالذنب بيجي سمانت إلهي وطوبكينه إلهي ونحرسنا يا إن شاء الله تعالى صلوا وسلموا على نبيكم المختار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. إله وكوت وبكيني ذنوبتنا ذنوب والدينتين. إله نعفي إله ذنوبتها نوقوان إله عقابتها نوسد دجنين. إله ذنبنا ذنب المسلمين. إله نعفي. وآخر دعوانا الحمد لله.